Dadka qaar ayaa laga yaabaa inay been u sheegaan si ay qof kale u difaacaan ama inay isbeddel wanaagsan ku sameeyaan xaalad. Si kastaba ha ahaatee, waxaa muhiim ah in la fahmo in beentu ay keeni karto cawaaqib xumo, waxaana muhiim ah in la ogaado sababaha ka dambeeya iyo saamaynta ay ku yeelan karto dadka kale. Dadku waxay u been sheegi karaan sababo kala duwan. Lixdan ayaa dhiirigeliyaal u ah in qofku been sheego. Si aad faa'iido u hesho, dadku waxaa laga yaabaa in ay been sheegaan si ay xaaladdu ugu horreeyaan, hadday tahay goob shakhsi ama mid xirfadeed. Waxaa laga yaabaa inay been sheegaan si ay u helaan dalacaad, uga fogaadaan ciqaabta, ama u helaan faa'iido aanay si kale u heli lahayn. Si ay isu ilaaliyaan, dadku waxaa laga yaabaa in ay been sheegaan si ay naftooda uga badbaadiyaan cawaaqib xumada, sida in ay dhibaato galaan, la kulmaan diidmo, ama la dhaawaco. Si looga fogaado isku dhaca, dadku waxaa laga yaabaa inay been sheegaan si ay uga fogaadaan iska hor imaad ama si ay u ilaaliyaan nabadda xiriirka. Waxaa laga yaabaa inay been cad u sheegaan si ay qof dareenkiisa uga badbaadiyaan ama ay uga fogaadaan muran. Si loo abuuro muuqaal gaar ah, dadku waxaa laga yaabaa inay been sheegaan si ay isu soo bandhigaan si gaar ah, sida inay noqdaan kuwo ka guulaysta, ka caqli badan ama ka xiiso badan inta ay dhab ahaantii yihiin. Si wax loo qariyo, dadku waxaa laga yaabaa inay been sheegaan si ay u qariyaan macluumaadka ama howlaha aanay doonayn inay dadka kale ogaadaan, sida arrin balwad ama fal dembiyeed. Waxaa laga yaabaa in ay caado been u sheegteen, waxaa laga yaabaa in ay tahay balwad, nooc wax isdaba marin ah, ama arrin dareen leh.